بسم الله الرحمن الرحيم markuu ugu horeysay hay'adda maan waa mahadsan yihiin fikrada kala duwan iyo doodahan wanaagsan positive-ka noo keeneen waxaan rabaa inaan la daarno shacabka Soomaaliyeed maadaama caaba aan barlamaan ahaan xildhibaanada iyo anoo guddoonka ka socday aan platform fiican ay noo diyaariyeen maan oo aan uga hadalnay sidii loo ciribti karo ururka al-shabaab gaar ahaan dhinaca dhaqaalaha waxaan rabaa shacabka Soomaaliyeed inaan ku baraarujiyo kula dardaarmo shabaab way baaba'een sidii u dhaqsiya badan u baabi'i doonaan muddo dhowr iyo 16 sano ay haysteen waqtigoodii baaba'ay markii waxaan rabnaa inaan shacabka Soomaaliyeed aan ururka al-shabaab la dagaalano iska saarno baaqi madaxweynaha aan ku garab istaagno oo ballanta uu ku qaaday markii la doortay in ururka al-shabaab wadanka laga saaro shacabku waxaan leenahay annaga ka baarlamaan ahaan baarlamaanka federaalka Soomaaliya labadiis aqalka sare golaha shacabka anoo ku hadlaa magacooda waxay diyaar u yihiin inay dhinac walba ka taageeraan hadday dhinac sharciyada yihiin haddii dhinaca ay tahay dhaqaale in loo aruuriyo dadka shacabka Soomaaliyeed ee la dagaalamaya ururka al-shabaab iyo ciidamada dawladda marka waxaan leenahay gobolada qaar sida dowlad goboleedyada dagaal ku jira Hirshabelle oo kale in loo hiiliyo oo galmudug u hiiliso Puntland oo kale inay u hiiliso gobolada dagaalada ka socda koonfur galbeed in idin hiilka hadda ay u sameeyso walaalada Hirshabelle oo dagaalka wada markii dhinacooda dagaal ay Jubbaland ama uu ka bilowdo koonfur galbeedna in loo wada hiiliyo ay isku hiiliyaan dhammaan dowlad goboleedyada iyo shacabkoodaba inay loo soo wada jeesto in ururka al-shabaab iyo ururada kale Daesh ee argagixisada in wadanka laga saaro wadankeena markaas uu barwaaqo noqona shaqaale badanna waa heli doonaa oo ah beerihii la aada xoolihii aan dhaqan doonaa kalluumaysigeena soo saara doonaa waxaa imaan doona dalxiiska imaan doono marka haddii al-shabaab laga adkaado dhaqaalihii kor u kaca dawladdii Soomaaliyeed oo madaxdeeda aan nahayna waxaan diyaar u nahay shacabka inaan dhinac walba ka taageerno aad u mahadsantihiin assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh